xulka qaranka Soomaaliya ayaa tababar waxay ku sameeyeen magaalada Dooxa ee dalka Qatar kadib markii dhawaan ka soo tageen tababar ay ku sameeyeen wadanka Djibouti. qaranka Soomaaliya oo ka kooban maamul, macallimiin, ciyaartooy iyo wafdi kale ayaa waxay diyaar garow xoogan ay u galeen ciyaarta ay ka hortagayaan wadanka Oman. xulka qaranka oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn isugu diyaarinayay wadanka Djibouti ayaa waxay rajo wanaagsan ka qabaan inay guul ka gaari karaan xulka Oman. qof walba Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in xulka sanadkan oo guulo waaweyn ka gaari karo xulku wajahayo, balse xulka Oman iyo xulka qaranka Soomaaliya ayaa laga dhursugi doonaa kulanka ay ka harsan tahay kaliya labada maalin. xulku waxay caawa bilaabeen tababarka ayagoo si weyn isugu diyaarinayo ka hor kulanka labada maalin ay ka harsan tahay, balse waxaa rajo wanaagsan ay ka qabaan dhammaan maamulka, macallimiinta iyo ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya si ay guul kaga gaari lahaayeen dhigooda xulka Oman. madaxa wafdiga xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ahna madaxa dishibliinka iyo caafimaadka Cumar Mugabe ayaa ka sheekeeyay tababarka caawa ay sameeyeen xulka qaranka Soomaaliya. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. caawa waxaan joognaa trainingkeena ugu horeeyay oo ka dhacay Qatar University Camp 3 waxay training center oo fara badan mid ka shirxad ayaan ku soo bilay. waxaan u diyaar garownaa ciyaarta waata bisha Oman oo ciyaar la ciyaari doono insha Allah waan ku guuleysan doonaa. waa mahadsantihiin.